السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجلة waxaan soo duubay oo aan uga dan leeyahay waxaan rabaa inaan kaga hadlo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed isku haysata gobolada isku magacaaba Puntland iyo Somaliland labada dawlad goboleed isku hor jooga inay istagaalaan oo maaragtay la isku haysto xuduud beena oo aan jirin iyo wax maalayacniya oo dadka lagu heligayo oo dadka lagu leynayo waxa weeyaan waxay isku dagaalhayaan labada qolo waxaan jirin bay isku dagaalhayaan xuduud meeshaas ma aha xuduudda waxa weeyaan dhulka waa dhul Soomaaliya waa bartamihii Soomaaliya weeye wax xuduud la dhaho meesha ma yaalaan labada geesba way leeyihiin waa wadan isu furan waa hal wadan oo maaragtay hal mid ah wax xuduudana ma aha wax xuduuda oo lagu sheegana ma jiraan meesha labada dhinacba way leeyihiin labada dhinacba waa wadan isu furan oo labada dhinacba maxaa la dhahaa aan wax hada jirin oo ninka Puntlandna aan laga lahayn ninka Puntland sheeganahay aan laga lahayn ninka Somaliland sheeganahay aan laga lahayn waxa la isugu dilahay meeshaas oo la isugu haysto waa maalayacni la rabo in lagu daadiyo dad dhiigood waxa weeyaan waxaas raali kama nihin waan ka xunnahay ma rabno wax dhiiga inuu ku daato oo sabab la'aana oo maalayacniya oo dad maaragtay aan ummadda iyo shacabka kala jeclayn inay dadka isku laayaan oo iyagoo fiirsanaya danahooda shakhsi inay isku laayaan dadkaas waan ka soo horjeednaa raali kama nihin kuma habboona dhiig Soomaaliyeed lagu daadin mahayo maalayacnina loogu daadin mahayo yaan dadka la isku dilin labada nin oo horjoogayaasha meesha ka ah labadaas nin haddii ay dood qabaan ama ay rabaan inay wax dilaan ama ay dhab ka tahay oo ay rabaan inay maaragtay dagaalkan iyo waxaan ay oogahayaan hadday dhab ka tahay labadoodu safka hore ha galaan labadoodu ha isku bilaabaan labadoodu ha u horeeyaan dadka yaan la isku haligin naftoodu kama qiimo badna shacabka dhimanaya ama caruurta yaryar ama gabdhaha yaryar ama wiilasha yaryar ama dadka shacabka ah naftooda lagu khimaari mahayo naftooda cabdiweli iyo ninkaan la dhaho iyo muuse mirqaan muuse biixi mirqaan labadaa nin dadka yaysan ku khimaarin maalayacni aan la isugu dilin maalayacni waa kasoo gudubnay wax maalayacni la isugu dilo oo waxaan kusoo jirnay 30 sano kusoo jirnay maalayacni dadku dhimanaya iyo kii shalay dhintay cod xasuusata ma leh meel uu maaragtay cod uu u dhintay male cod uu difaacay male dad horlayaan la isku leynin dad walaalo ah oo wada dega oo wada siman oo Soomaali wada ah yaan la isku dilin maalayacni yaan loo dilin anigu waxaan ahay nin u dhashay goboladaas Puntland baan u dhashay ma rabo in la daadiyo dhiig isaaq ma rabo in la daadiyo dadkaas masaakiinta oo maskaxda laga xaday oo lagu yiri waxa tihiin qaran baa tihiin iyo maaragtay dawlad baa tihiin in dhiigooda la daadiyo ama la dagaalo masaakiin maskaxda laga xaday oo laga aqli badiyay oo niman qaad ay ku raadsanayaan qabqablayaal ah waan ka soo horjeedaa qaad uu muuse biixi cunahayana yaan loo leynin caruur codday rabaan ha ahaadeen ama isaaq ha ahaadeen ama daarood ha ahaadeen ama cod kale ha ahaadeen yaan loo dilin nin yuusan dhiigiina yuusan ku xaragoonin nin aan idin kala jeclayn oo bari markaa dhimataan aan idin tabaynin hooyooyinkiin baa idin tabahaya aabayaashiin baa idin tabahaya walaalihiin baa idin tabahaya muuse mirqaan iyo cabdiweli idinma tabahayo kuwii dhintay kuwii shalay dhintay ma oga kuwii daraad dhintay ma oga idinku haddaa dhimataanna cod idin og ma leh ka jooga yaan la dagaalamin ha laga fiirsado ha laga joogsado dagaalkan waxa weeyaan dhiig Soomaaliyeed oo ku daata
waan ka soo horjeedaa Soomaali meel ay joogtaba in ay isdagaalaan ama maalaayacni ay isku dilaan Soomaali waxa isku disho waa maalaayacni wax dhaba ma aha cadow isuma aha Soomaali waxa weeyaan maanta waa la isleenayaa barina waa la isdhex joogaa cadow isuma aha Soomaali cadow isuma aha ninkii dhahana Soomaali baa cadow isu ah waa beenlow waxa weeyaan khaa'in ah oo dana kala wata oo tuug ah oo nolosha ka dhacay weey Soomaali cadow isuma aha gobolada koonfurtu waqooyi uma aha cadow kuwa waqooyigana in kasto ciyaalka madaxa laga xaday oo ay iska leeyihiin Soomaali baa cadow noo ah iyo maaragtay iyo wax lamida oo war lagu shubta ay daldalhayaan Soomaali cadow isuma aha Soomaali cadow isuma aha ninka ka taga goboladaas bariga maxaa la dhahaa Boosaaso Garowe Gaalkacyo ninka ka taga oo Hargeysa taga wadankiisu dhex jooga shacabkiisu ku dhex jira cod ka garanaysa malaha cod soo qabsanaysa malaha wax yaan la isugu sheekaynin kan waqooyiga ka yimaada Hargeysa ka yimaada Burca ka yimaada Boorama ka yimaada oo taga Boosaaso Gaalkacyo lagama xigo dhulka asaga leh cadowna dadku ma aha waa dadkiisii baan yaan la isu sheegin yaan dadka la lugoynin dadka ugu horeeya oo afka ugu afxun waxa weeyaan waa inta qaadka ku raadanaysa maxaa la dhahaa magac ay leeyihiin Somaliland baan nahay iyo garac waxaan nahay Ingiriis uu ka tagay iyo gumaysigii Ingiriis baan gumaystay oo dhulka noo calaamadiyay waxaas wax ka jira male Ingiriis dhulka idin ma siin Soomaali xuduud uma samaynin Ingiriis waa la cayriyay xuduudaha wax ka jira male uu sameeyay gaal buu ahaa anagoo joogno noo yimid anagoo joognana uu naga tagay nin hadda maskaxda Ingiriis uga xaaray oo caqliga Ingiriiska nagu la hadlaaya ma rabno masaakiin ama caruur ama dad caqli yar oo dadka inta laga caqli badan yahay oo loogu sheekeeyo Ingiriis baa waxaan idin siiyay Ingiriis baa halka idin calaamadiyay Ingiriis baa sidaan idin yeelay Ingiriis waxaas ma jirno Ingiriis maxaa la dhahaa waxba nooma aha Ingiriis waxba noogama qaban Ingiriis waxa weeyaan waxba nama siinin dhulka annaga lahayn awoyaashayaa lahaa geel bay daaqsan jireen waxa weeyaan waa la isu gudbi jiray waxa weeyaan wadan lama kala lahayn ninka Ingiriiska ku haya Ingiriis baa saan ii yeelay Ingiriis baa saan ii sameeyay Ingiriis wacal Ingiriis aan lahay nin kale adiga iyo Ingiriiska sheeganaysid iyo hooyadaaba candhuuf aanu ku tufaynaa naca laabaha ku yaal Ingiriis waxa weeyaan u tag orod England tag orod London tag orod waxa tagtaa Manchester tag haddii aad sheegaysid oo la Ingiriis baa wax iiga tagay waxaan ku leenahay naca laabaha ku yaal waxa weeyaan hadda cara iga keeni mayso inaa candhuuftaa tufo laakiin waxa weeyaan waxaad ku habboon tahay weey in lagu candhuufo baad ku habboon tahay Ingiriis waxa weeyaan nooma taliyo Ingiriis ma naqaano Ingiriis xuduud nooma jarin Ingiriis waxba kuma siinin Ingiriis waxaanu leenahay ma uusan bixin Ingiriis ma naqaano waa la cayriyay wadanka laga cayriyay caqligu kaaga xaaray Ingiriiska sheegaysid 80 sano ka hor baa wadanka laga cayriyay nimanka uu maskaxda uga xaaray oo maaragtay oo ayaguna ciyaalkii maskaxda uga xaaray oo maaragtay ciyaalka maskaxda ka xaday oo dadka inta laga caqli badan yahay ku yiri Somaliland baa leedan dhahay qaran madax banaan baa tiin iyo qaran Somaliland baa tiin waxaas wax ka jira male waxa weeyaan waa dad Soomaali nacab waa dad ayagu isnacab waxaas ma yeelayno ma aqbalayno Soomaali nacaybka waxa weeyaan cadawga ugu daran oo maanta Soomaali leedahay waxa weeyaan Soomaali dadka Soomaali nacaybka ah weey dadka Soomaalida nacab weeye oo magac af Soomaaliga ku hadlo weeye oo ayagu isnacab oo maaragtay shakhsi ahaan naftooda dadka nacab oo la dhaho self hating dadka la dhaho weeye waa dad qofku shakhsiyan isaga isnacay isaga iska faanahaya isaga iska cararahaya ma yeelina waxaas anagu Soomaali baanu nahay Soomaali baanu ku abtirsanaynaa Soomaali baanu ku faanaynaa qabiilkaygu waa Soomaali Soomaali diidow dilaac waxa yaanu leenahay dibiro dilaac baanu ku leenahay Somali waxa weeyaan anagu Somali baan nahay meel kasto aan joogno Somali baan nahay hadii aad maaragtay Boosaaso hadaanu joogno Somali baanu nahay Soomaalinimo aanu ku joognaa hadaanu Hargeysa joogno waxaan nahay Somali baanu nahay haddaan Burca joogno Somali baan nahay dad iswada leh baan nahay Ilaah baa isku kaayimid naga dhigay Ilaah baa isku meel nagu beeray wax xuduuda oo la dhaho ma jiro xuduudka ugu sokaysa oo Somali ay leedahay waa xuduudka ay Oromada la leedahay xuduud Oromada ka sokeeya Somali male baddaas baa ugu sokaysa xuduud
inkastoo dhul kasta oo Soomaali degto Soomaali baa iskale gaarisa wajeer dadka degan waxa waa Soomaali muqdisho lagama xigo burco lagama xigo boosaaso lagama xigo hargeysa lagama xigo boorama lagama xigo qof wadanka ka xiga male Soomaali baanu wadanahay maxaa la Soomaalinimaanu ku dhimanaynaa Soomaali baanu jecelnahay haddii aad Soomaali adigu aad nacab tahay dubro dilaac u dhimo waxa weeyaan haddii aad Soomaali rabin ka tag wadanka ka tag ka dhoof dhulka Ilaahay waa badan yahay waxa weeyaan waxaad u guurtaa Hindiya u guur waxaad u guurtaa Bangladesh waxaad u guurtaa Sri Lanka waxaad u guurtaa maxaa la Jamaica waxaad u guurtaa wadamo kale jira oo Soomaali oo ay kugu imaaneen laakiin geeska Afrika haddii aad degan tahay waxa weeyaan xuduud Kikuyada la leedahay baa xuduud u sokaysa wax kale oo ka sokeeyo male wax kale oo lagu dagaalamo male Soomaali waa Soomaali yaan been la isu sheegin maxaa la Soomaali waa mid hal wadan baa jira hal qaran baa jira wadan waxyaalahan ay gaaladu sameysteen oo Jubaland iyo Puntland iyo Somaliland iyo waxaas wax weeyaan riwaayada naga daaya riwaayad ma rabno maxaa la Soomaali riwaayad la isugu dilo ma rabno in Soomaali riwaayad la isugu dilo ma rabno maxaa la dad been ku dhinta ma rabno dadka ka soo jeeda oo maskaxda laga xaday oo la leeyahay Somaliland baa tiin iyo qaran Somaliland baa tiin dadka la leeyahay maskaxda laga xaday masaakiinta ah oo ducafada ah oo aqliga inta dadka aqliga ugu liidatay ah waxa weeyaan in la dilo raali kama nihin in la laayo raali kama nihin reeray ka baxayaan waxa weyn dad bay ka baxayaan qoysas bay ka baxayaan ummadda yaan madaxa laga xadin ciyaalka yararka ayaan loogu sheekaynay Somaliland baa tiin iyo qaran baa tiin iyo maxaa la dhahaa laan waxa la dhaho ma jiro af Soomaali kuma jiro laan waxa la dhaho af Soomaali kuma jiro meeshaad ka keenteen ma garanayno af Soomaali caadi ku hadla ummad Soomaaliyeed tiin isna caybka joojiya waanu ka soo horjeednaa ummadan maskaxda laga xaday dad badan oo aqli badan baa ku jira gobolada waqooyiga oo dad nadiif ah oo qalbi macaan oo shakhsiyad macaan oo dadka ugu wanaagsan baa ku jira laakiin waxa ugu qaylo dheer waa tuugada ugu qaylo dheer musuqmaasuqiinta ugu qaylo dheer muqayiliinta ugu qaylo dheer oo intaas dhaha waxaanu leenahay Somaliland baan nahay waxaasaanu nahay Soomaali baan nacabnahay nimanka qayilahayo qaadkiina meel kale ka raadsada joojiya ummadan aad qaadka ku raadsanaysaan dadkan aad halaagaysaan joojiya ninkan la dhaho muuse biixi oo muuse muqayil muuse mirqaan Ilaahay baan kugu dhaariyay haddii aad tahay qof bini aadana oo fiyow oo maskaxdiisu fiyow tahay haddii aad tahay ummadda ha isku halaagin qaadka aad ku raadsanaysid iyo mirqaanka aad ku raadsanaysid jooji dadka ha isku dirin Soomaali baa la wada yahay hal wadan baan nahay maxaa la walaalaanu nahay hal dad baanu nahay jooji waxa weeyaan mirqaankan iyo ictiraafkan iyo waxaan jooji mirqaankan ka jabo waxa laga yaabaa hadda dadka marka aad ku soo duuleysay ama aad dhibkaan iyo qalalaasan ka cunaysi waa lagu fahmayaa waxyaalaha ujeedada meelaha boorka aad isku qarinayso oo dhan waa la fahmayaa waxa weeyaan ujeedadaadu waxa weeye hal lagu maqlo oo waxa weeyaan markii farmaajo uu yimid dhulkaad isku soo aadisay oo waxa rabtaa indhaha caalamka oo ku soo jeeday maxaa la dhahaa maadaama dad badan oo eegaya ama dad badan caalamku uu ka warhayo uu eegayo meeluhu maraya iyo maaragtay indhaha caalamku maadaama ay hayaan farmaajo yaad waxaad rabtaa inaad isku soo jeedisid intaad la murantid oo la ilaaqtantid oo la caraatantid baad waxaad rabtaa inaad markaas indho ku soo jeeday indho caalam oo fiirinayay farmaajo inay adigana ku arkaan baad rabtaa marka waxaan jooji gaal baa iiga tegay waxaan iyo gaal Ingiriis aabaha ahaa iyo agoon baan ahay waxaan jooji Ilaahay ka baq haddii aad muslim tahay waxa weeyaan kullu waxaan kuma aada kacayaan dadka muslimiinta ah waa hal mid إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا له ذاك مسلمين وولاله كريستان إثيوبيانا ولا لنا لا أوران يدد إلهي آمسنين أو كريستانا ولا لمتين وأوجهي مسمرقان وحو آمسين هاي إن حبشرة يتكرر إن ولا ليهم بو آمسين هاي يا كريستانك إن ولا ليهم بو آمسين هاي محل ذاك Somali أو مسلم كانوا وحو آمسين هاي إن عدو يسيهين marka waxa weeyaan waxaad walaal ka dhigatay kristaanki iyo dadkii aan Ilaahay aqoon baad waxaad ka dhigatay walaalo waxaanad ka cararaysaa oo aad rabtaa inaad col aan iyo cadaawad aan meesha oolin inaad ka dhex dhigtid dad muslimiin ah oo walaalo ah oo Soomaali ah oo isku mid ah inaad cadaawad dhex dhigtid baad rabtaa waxa weeyaan waxaan kugu tilmaami karaa inaad tahay munaafiq inaad tahay baan kugu tilmaami karaa
muuse mirqaan jooji mirqaankan iyo qaadku wuxuu kuu sheegahaya jooji waxa weeyaan nimankiina la dhaho jeegaanta waxa weeyaan waxaad wada